waxaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24 December magaalada Muqdisho ka dhacay shir wada tashi ah kaas oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka siyaasadda aqoon-yahaniinta ganacsatada haweenka dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxay isugu yimaadeen maanta kulankaas oo ay ku cambaareenayaan hadalkii gafka ahaa ee ka soo yeeray xildhibaankii qaran ee xildhibaan Fiqi beeshu waxay cambaareenaysaa hadalkii gafka ahaa ee ka soo yeeray xildhibaan Fiqi kaas oo uu ku tilmaamay xeer ilaaliyaha qaranka inuu wadanku dheeri uu ku yahay kaas oo meel uga dhacay sharaftii muwaadinimo ee xeer ilaalinta qaranka labo beeshu waxay cadeynaysaa in xeer ilaaliyaha qaranka uu yahay mas'uul qaran una dhaxeeyo ummadda Soomaaliyeed waana shakhsi difaacay badda Soomaaliyeed xilli ay gabi ka laalaaday dawladdii tan ka horeysay beeshu waxay xasuusinaysaa xildhibaan Fiqi in oraahdii ka soo yeertay ay abuurtay xasarad keeni karta in dalku uu dib uga laabto colaadihii laga soo gudbay hadalkaasi uu ahayn hadal xildhibaan qaran uu ku hadlo haddii uusan xildhibaanka raali gelin ka bixin waxaan la tigsan doonaa sharciga beeshu waxay ka digaysaa in mar labaad uusan soo laaban ficilada guracan ee ka tarjumaysa cunsuriyadda qabyaaladda iyo ninjeclaysiga ugu dambeyn beeshu waxay ugu baaqaysaa dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay tilaabo sharciga waafaqsan ee ka qaado shakhsiyaadka xilalka qaran xambaarsan haddana ku hadlaayo hadallo kala faquuqid jinsiyadda Soomaaliyeed maasantiin waxaan daba joognaa oo rabnaa inaan ka hadalno war saxaafadeedkayagan uu macnaha ku saabsan yahay dhacdadii ka dhacday 17kii bishii 12aad guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo beeshu ay kala sinnayd beelaha Soomaaliyeed oo waxay ka warqabtay aysan jirin warar badan oo ka soo baxay xildhibaanada ka tirsan Soomaaliya oo xasaanad xambaarsan oo shacabka u dhaartay oo macnaha waxa weeyaan sida Soomaalidu hadda ay og tahay ninku hadduu xildhibaan yahay waa ummadda dhan buu xildhibaan u yahay ninkaas warar aan macnaha waxa weeye laaciq lahayn oo ka soo baxay baan daba joognaa waxaan idiin sheegaynaa waxaa wararkiisa ninkaa ka mid ahaa Soomaaliya dad baa macnaha ku ah dheeri dad baa dheeri ku ah waanu ka saaraynaa ninkaas afcad ku yiri waxaan arrintaasaan ka jawaabaynaa waxaan idiin sheegaynaa annagu waxaan nahay beesh weyn oo beelaha Soomaaliyeed ka mid ah oo surra la yidhaahdo anoo ku hadlahaya nabadoonnada beesha surre afkooda waxaan caddaynaynaa in Soomaaliya aan la kala lahayn cid magan waan haysan jirin cid magan loogu yahay haysan jirin waxaan u sheegaynaa ninka la Fiqi afka ka leexleexin mayno dad Soomaaliyeed oo kale waxba ka sheegi mayno qabaa'il waxba ka sheegi mayno waxaa jirta waxa la yidhi annagu beeraley baan nahay waxaa la yidhi sabuul hadduu dheeraada la qaada cid taqaan baa taqaan waxa weeye ninkaas isaga ah waxaan u malaynayaa si aan macnaha ula kaca ayuu lahadida hadalka u adeegsaday waxaan rabnaa oon u sheegaynaa oo ummadda Soomaaliyeed aad dhageeda ugu shubaynaa hadda waad garan kartaa hadalkaas waa hadal weyn hadduu qofku yidhaahdo Soomaaliya cid baa dheeri ku ah hadduu yidhaahdo waxaa waaye waa qabiil baa dheeri ku ah way annagu saasaan u qaadanaynaa annagu Soomaaliyaan degannahay cidna magan ooma nihin cidna macnaha waxaa weeye marti ogama nihin Soomaaliya oo dhanna waa degannahay dadkuna eel iyo qaraabo iyo saaxiib baan nahay weliba khaasatan markaan sii sheegno macnaha waxaa weeye dadka asaga uu ka soo jeedo meelo badan baan daris iyo eel qaraabo ka nahay arrintaas ayada waa cambaaraynaynaa weliba waxaan u sheegaynaa asagoo xasaanad xambaarsan oo xildhibaan Soomaaliyeed ah inuu macnaha arrintaas ayada ku hadlay waxaan idiin sheegaynaa
in macnaha waxaa weeye ninkaas isaga ah taargetka iyagu ninkaas way waxaan u sheegaynaa annagu beel baa la yidhahdaa beel shura la yidhahdaa beel nabadeed baan nahay soomaaliya oo dhan baan macnaha waxaa weeye nabadda ugu baaqnaa cidna ma gardaraysanno cidna waxba uma dhinno laakiin ciddii macnaha waxaa weeye aan ka joogsawayno nadaa aan ka weyno haddee wax kulul bay nagala kulantaa soomaalida wayna taqaanaa soomaaliyana daris badan baan la nahay ummadda wayna taqaanaa waxaan u sheegaynaa ciddii soomaali ah oo arrintaas ayada ka gelgelatay waa u mahad celinaynaa ciddii macnaha dabada ka riixayso oo waddana haddee ka joog baan leenahay waxaan rabnaa bahda saxaafadda in warkaas ay si toos u sii daayaan oo macnaha waxaa weeye ummadda soo dhegeeda ku sugan waa ka codsanaynaa waxaa kaloo idiin sheegaynaa annagu haddee soomaalina waa istaqaan beel nabadeed baan nahay beel aan soomaalida waxba dhibin baan nahay beel aan cidna gardaraysan baan nahay beel macnaha daris wanaag dadka ku noolaataan nahay arrintaas ayadaa ninkaas fiqri waxaa weeye afka ka leexleexin mayno hadalkaasu macnaha waxaa weeye kollay ulajeeda uu yidhi haddee cid projes ka keenta haddii la arko macnaha xalna waxaa weeye wax kala way arrintaas ayadaa macnaha war saxaafadkaanu ku saabsan yahay waxaa waaye saxaafadduna ay warkaas sii dayso waa rabnaa haddee waxaan is leenahay xeeraalyaha guudbu macnaha soo markaas ay aan ka dhiganaysaan is leeyahay waxaan rabnaa in shirkan wuxuu ku saabsanaa mudane fiqi wuxuu ka soo baxay oo ahaa caqli iyo xigmad uu lahaa oo juhdi ahaa oo uu geliyey yacni ka hortagga ama meel ooga dhaca beesha sure yaan rabnaa waa xildhibaan soomaaliyood annaga weli xildhibaanka naga waaye inaan u caqli celinaan rabnaa waxaa waaye soomaalidu waxbay isku darsatay waxna way kala leedahay waxaan isku darsatay dowladnimada waa la isku darsaday cidna cid marti uguma aha qabiil qabiil uguma aha aqoon-yahan marti uguma aha mid xil haya mid kaloo xil haya marti ugama aha waxaan rabnaa inaan xasuusino mudane faqi waa xildhibaan qaran waa xildhibaan soomaaliyeed shacabka beesha surana xildhibaankoodii waay asagaaba iska tuurahaye weli waxaan leenahay xildhibaanka nagaa tahay aan kuusa caqli celinaynaa caqlicintaasi waanadaas allah kugu anfaco ilaahay markuu kugu anfacana insha allahu tacaala meediyaha tegi doontaa oo balajeesad ka bixin doontaa waxaan leenahay mudane waxa ku dheeriga ah ama qabiil ah ama aqoon-yahan ah ama xeer ilaaliyaha aad toos u abbaartay waxaan kuu sheegaynaa dowladda waxay ka kooban tahay qabaa'ilada waxay isku darsadeen ku heshiiyeen mudane xildhibaanada qaranka oo ah aqalka hoose iyo aqalka sare 73 xubnood baad ku leedahay axmed calina 73 ku leeyahay mudane waxaan kuu sheegaynaa odayaasha dhaqanka oo dowladda soo dhisay 135 waxaad ku leedahay 31 axmed calina 31 ku leeyahay mudane waxaan kuu sheegayaa kursiga aad ku fadhidid waxaad ugu fadhidaa mataqaanaayey matalaad aad ku matalaysid beeshaada kursiga uu ku fadhiyana marti kaaga ma aha wuxuu ku matalaa beesha sure inta adoo arkahayo inaad meel kale madaxa gelisaa waa gardarre ee qarannimo inaad u hadishiday aheyd marka waan ku xasuusinaynaa inaad ku soo noqotid xaradii xasaanadda iyo xildhibaannimada iyo soomaalinimada in ilaahay ku waafajo ku soo noqotid oo kugu aqli celinaynaa waxaa kaloo sheegatay caasimadda waxaad tidhi meesha dowladnimada lagu hayo dheeri buu ninkan ku yahay waa is ognahayoo meeshaad ku dhalataa naqaanaa isna meeshuu ku dhashaan ku naqaanaa adiga waxaad ku dhalatay dagaari waxay u jirtaa xamar ay u jirtaa 590 kilomitir ay u jirtaa axmed wuxuu ku dhashay qooney waxay u jirtaa 380 inaad ka sheegataa mudnaan ma aha taana waxaan kuu sheegi wuu kula leeyahay caasimaddana waa caasimad soomaaliyeed
qaranka waa qaran Soomaaliyeed ma taqaanaa waxa aan ku heshiinaan ku wada joognaa marka gafkaas asaga allaha ku garansiiyo inaad ka noqotid beesha suraad ka gashay aqoonyahankoodaad ka gashay sharciga qaranka oo ku heshiiyo oo loo dhiibay iyo wixii dawladda u egmatay seed u gudatay baad ku weerartay ninkaas asaga